Hooyadu waa tiirka ugu weyn ee nolosha aadanaha. Waa qofka ugu horeeya ee aynu naqaano marka aynu dunida imaano. Waana qofka ugu horeeya ee na siiya jacayl, naxariis iyo daryeel aan sharuud lahayn. Hooyo ma aha oo keliya qof caruur dhala, balse waa macalinka hagaha nolosha iyo geesiga dhabta ee qoyska. Marka ilmuhu yar yahay, hooyadu waxay u hurtaa hurdadeeda, raaxadeeda iyo waqtigeeda si ay u hubiso in ilmaheedu caafimaad qabo oo faraxsan yahay. Waxay la wadaagtaa xanuunkiisa, waxayna ku faraxdaa guushiisa. Inta badan dadka maanta guuleystay waxay qirayaan in hooyadood ay door weyn ka qaadatay halka ay maanta joogaan. Hooyadu waa iskuulka ugu horeeya ee ubadku ay wax ka bartaan. Iyada ayaa barta akhlaaqda, ixtiraamka, runta iyo sida loola dhaqmo dadka kale. Casharada ugu muhiimsan ee nolosha ayay bartaa. Marar badan waxay ka bilaabmaan guriga iyo gacanta hooyada. Sidaas darteed, bulsho wanaagsan waxay ka bilaabmataa hooyo wanaagsan. Waxaa jira waqtiyo badan oo hooyadu la kulanto dhibaatooyin iyo caqabado, balse marar badan way qarsataa si aysan ubadkeedu uga walwalin. Waxay xambaartaa culays badan, haddana wejigeeda waxaa ka muuqda dhoola caddayn. Tani waxay muujinaysaa awoodda iyo geesinimada ay hooyooyinkan leeyihiin. Qof kasta oo noloshiisa dib u eega wuxuu xasuusan karaa waqti ay hooyadiis garab istaagtay markii uu dhib ku jiray. Waxaa laga yaabaa inay ahayd erey dhiirigelin ah, talo wanaagsan ama duco qalbiga ka timid. Mararka qaarkood hal duco oo hooyo ayaa bedeli karta jihada noloshaada oo dhan. Bulshooyinka horumaray waxay siiyaan hooyooyinka qadarin gaar ah, sababtoo ah waxay fahmeen in hooyooyinka ay yihiin saldhigga qoyska iyo bulshada. Haddii hooyada la xoojiyo, qoyska ayaa xoogaysanaya. Haddii hooyada la xoojiyana, bulshada ayaa horumaraysa. Waxaa muhiim ah in aynu xasuusano in jacaylka hooyada uusan ku xirnayn maal, masab iyo muuqaal. Hooyadu waxay ubadkeeda u jeceshahay xaalad kasta oo uu ku sugan yahay. Xitaa marka dadka kale ka quustaan, hooyadu keligeed rajada kaama goonayso, kaamana quusanayso. Dhalinyarada maanta waxaa looga baahan yahay inay qadariyaan hooyooyinkooda inta ay nool yihiin. In la ixtiraamo, la dhagaysto talooyinkooda, la garab istaago waa waajib saaran qof kasta. Waxaa jira dad badan oo maanta jeclaan lahaa inay mar kale maqlaan codadkii hooyadood, balse aysan fursad u haysan midaas. Ugu dambeyntii, hooyadu waa hanti aan lagu bedeli karin wax kasta oo dunida yaal. Waa iftiinka guriga, waa ilaha naxariista, waana qofka ugu dhow qalbiga ubadkeeda. Aynu qadarino hooyooyinkeena, aynu u ducayno, aynu tusno jacaylka iyo ixtiraamka ay mudan yihiin hooyooyinkeena. Hooyo waa hadiyadda ugu qaalisan ee Eebba siiyo bini'aadamka. Qofka hooyadiis qadariya wuxuu helaa duco, barako iyo farxad noloshiisa inta ka dhiman ah. Sidaa darteed, markasta xasuusnow in guulo badan oo aad gaarto ay ka dambayso hooyo kuu soo jeeday habeenno badan, kuu ducaysay maalmo badan, kuna jeclayd jacayl aan dhammaad lahayn.